رئيس الوزراء جمهورية الفدرالية الصومالية مدane hassan kheire wuxuu ka helay martiqaad rasmi ah dawladda qadar martiqaadkaas oo qaadan doona muddo 3 bari ah uu kula kulmi doono madaxda qaranka dawladda qadar kadibna wuxuu ka qayb galigi doonaa shirka la yiraahdo Doha Forum oo asaguna 2 maalmood socon doona hadii Ilaahay idmo asidana uu kula kulmi doono madaxda qaranka dalalka kala duwan ee ka soo qayb gali doonta shirkaas.